bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa maalinimo talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay 17 bisha saddexaad sanada 2020. qodobada aad ku daawan doontaan hadduu eebe raali ka noqdo waxaa ka mid noqon doona madaxweyne farmaajo oo war ka soo saaray xaalada coronavirus ee Soomaaliya, ciidamada dowladda oo al-shabaab kala wareegay deegaano horleh, cabsida ku aadan in kiisaska coronavirus ee dalka ay ka badan karaan midka ay dowladda shaacisay, ra'iisul wasaare Kheyre oo bogaadiyay gulufkii military ee lagu xareeyay Janaale. qodobadaas iyo qodobada kale ayaad ku daawan doontaan. haddii ay tahay daawade markii kuugu horeysay fadlan subscribe inoo saar si aad u heshid macluumaadka aan halkan soo gelino, lana sii wadaag asxaabtaada adigoona u sii sheer gareynaya. waadna ku mahadsan tahay daawashadaada. madaxweyne farmaajo oo war ka soo saaray xaalada coronavirus ee Soomaaliya. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka hadlay cudurka coronavirus oo markii ugu horeysay la shaaciyay in qof qaba uu joogo dalka. madaxweyne Farmaajo ayaa fariin u diray shacabka Soomaaliyeed taas oo ku aadan caabuqa coronavirus, wuxuuna tilmaamay in ay ka go'an tahay dowladda Soomaaliya ilaalinta iyo badqabka caafimaadka ee dalka. madaxweynaha ayaa xusay in dalalka deriska laha Soomaaliya ee Kenya iyo Itoobiya ay ka mid yihiin dalal badan oo caalamka ah kuwaas oo ku faafay cudurkan, sida lasoo bandhigay diiwaangelin uu sheegay inay sameysay wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya. ilaa iyo hadda waxaan xaqiijinay gudaha dalkeena hal qof oo bukaan ah. xanuunkan waxaa khatartiisu gaarsiisan tahay meel aada u sareysa oo waxa uu si degdeg ah ugu faafay dalal badan oo ay ka mid yihiin dalalka deriskeena ah ee Itoobiya iyo Kenya, ayuu yiri madaxweyne Farmaajo. madaxweynaha ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay u hoggaansamaan tallaabooyinka caafimaad iyo awaamirta ay bixinayso wasaaradda caafimaadka, isla markaana la yareeyo isu socodka safarada, kulamada laga maarmi karo iyo wixii la mid ah si loo yareeyo faafidda cudurka coronavirus. bulshada ayaa laf-dhabar u ah dadaalka ay dowladda ka hortagayso cudurkan, sidaa darteed waa inay u istaagaan wacyigelinta una hoggaansamaan fariimaha caafimaad iyo qorshayaasha dowladda ay kaga hortagay in dalkeena uu ku faafo caabuqa coronavirus, ayuu hadalkiisa sii raaciyay madaxweyne Farmaajo. ugu dambeyntii madaxweyne Farmaajo ayaa faray xukuumaddiisa inay dardargeliso tallaabooyinka iyo qorshayaasha looga hortagayo cudurka si uusan ugu faafin dalka. bismillaahi raxmaani raxiim. ilaa iyo December 31 sanadkii tagay markii uu cudurka loo yaqaano COVID-19 kuna caanbaxay coronavirus laga ogaaday dalka Shiinaha inuu ka dilaacay, waxaa sii kordhay xawliga uu ku faafay cudurkaas. xogtii ugu dambeysay waxay sheegaysaa inuu saameeyey cudurkan dalal kor u dhaafaya 150, isla markaasna dadka uu saameeyey iyagu naftigoodu ay gaarayaan 157,000. ilaa hadda waxaa la xaqiiqsaday hal case oo dalkeenna ahna muwaadin Soomaaliyeed. waxaa xanuunkan khatartiisu uu gaarsiisan yahay meel aad iyo aad u sarreysa, khatarna ugu jiraa wadamo badan uu gaari karo. ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu cudurka naga badbaadiyo. qof kasta oo Soomaaliyeed iyo culummaduna inay duceeyaan oo ilaahay la baryo inuu cudurkan naga badbaadiyo. shakhsiga Soomaaliyeed muwaadinka ah oo cudurkan ku dhacayna waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu sida ugu dhaqsiyaha badan ka kiciyo. waxaa xusid mudan in labada dal ee deriska aan nahay ee Kenya iyo Itoobiya iyaguna uu saameeyey. waxaa nala gudboon marka oo nalaga rabaa inaan u diyaar garowno sidii cudurkan uusan ugu faafi lahayn dalkeenna, maadaama wadamo inaga horeeya dhanka caafimaadka ama xagga caafimaadka ay maareyn la yihiin. ciidamada dowladda Soomaaliya oo al-shabaab kala wareegay deegaano horleh. magaalada Janaale oo muddo badan ay ka talinayeen kooxda al-shabaab ayaa ugu dambeyn lagala wareegay markii ay dagaal ku qaadeen ciidamada dowladda Soomaaliya.
taliyaha ciidanka dhulka xooga dalka Soomaaliyeed Sareeye Guuto Cabdixamiid Maxamed Dirir ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada xooga dalka ay si rasmi ah ula wareegeen magaalada Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose isagoo intaa ku daray in ciidamada ammaanka ay wadaan baaritaano dheeraad ah. Taliyaha ayaa shacabka ku nool magaalada Janaale ugu baaqay inay isdejiyaan isla markaana ay si wanaagsan ula shaqeeyaan ciidamada amniga. Wararka ayaa intaa ku daraya in Al-Shabaab ay markii hore isaga baxeen deegaanka markii ciidamadii kusoo dhawaadeen, hase ahaatee weeraro isugu jira qaraxyo iyo kuwo toos ah ayay kusoo qaadeen intii ciidamada soo galayeen deegaanka. Deegaanka Janaale ayaa 4 sano u dambeysay ay ka talinayeen Al-Shabaab. Kowdii bishii September ee sanadkii 2015 ayay ahayd markii Al-Shabaab weerar ku bilowday qaraxyo weyn ay ku qaadeen saldhigyo ciidanka AMISOM, waxaana weerarkaasi lagu dilay askar ka tirsan ciidanka Uganda. Weerarkaas wixii ka dambeeyay oo khasaare xoog leh lagu gaarsiiyay ciidanka AMISOM ayay bilaabeen inay isaga baxaan. Al-Shabaab weli ma aysan ka hadlin qabashada ciidamada dowladda ee magaalada Janaale. Waxaa laga cabsi qabaa inay qorsheynayaan weeraro ku dhufo ka dhaqaaqa. Cabsi ku aadan in kiisaska coronavirus ee dalka ay ka badan karaan midka ay dowladda shaacisay kadib markii ay wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ay xaqiijisay in magaalada Muqdisho laga helay kiis la xiriira fayraska faraha badan ku haya dunida ee coronavirus. Waxaa soo baxaya cabsi ballaaran. Waxaa ka dhashay su'aalo badan oo cabsi abuuraya, midaasi oo ah inay jiraan kiisas ka badan inta wasaaradda ay shaacisay maadaama qofka la sheegay in cudurkaasi laga helay uu rakaab la saarnaa diyaaradii uu Muqdisho ku yimid. Inkastoo ay wasaaraddu aysan sheegin dalka uu qofkaasi ka yimid iyo waxa laga yeelay rakaabkii la saarnaa diyaaradda, haddana waxaa loo badinayaa inuu ka yimid Shiinaha maadaama horey loo sheegay in dadka ka yimid Shiinaha la karantiilayay, midaasi oo sii xoojinaysa cabsida ku aadan in caabuqa uu gudaha u galay magaalada Muqdisho. Wasaaradda marnaba kama aysan hadlin sidii laga yeelay rakaabkii kale ee la saarnaa diyaaradda qofka laga helay caabuqa, taasi oo ka dhigan in dadkaasi ay gudaha u galeen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Haddaba qaab noocee ayay wasaaradda u martay kala xulista rakaabka wada saarnaa halka diyaarad, midaasi oo dhalisay in hal qof oo rakaabkaasi ka mid ah laga helo coronavirus. Markii qofkan uu imaanayay Muqdisho durbadiiba lagama helin cudurka, taas oo fududeyn lahayd in dadkii diyaaradda la saarnaa la karantiilo. Hase yeeshee maadaama baarista loo diray dibadda waqtina ay qaadatay, dadkii diyaaradda la saarnaa qofkan waxay gudaha u galeen magaalada Muqdisho. Sababta kaliya ee dadka la karantiilayo loo hayo ayaa ah inay ka yimaadeen dalal uu ku faafay fayraska. Hase yeeshee la isma weydiinin dadka diyaaradda la saarnaa dadka la hayo waxa laga yeelayo. Xanuunkan ayaa maalmaha hore astaamihiisu yihiin kuwo qarsoon oo aan qofka laga garan, taasi oo sahasha in qofka uu faafiyo inta aan lagu arag calaamada. Waxaa la gudboon wasaaradda in warbixin ka ballaaran midda ay ku shaacisay ay ka soo saarto kiiska cusub ee la xiriira coronavirus ee xaqiijisay in dalka gudihiisa ka heshay. Sidoo kale go'aanka lagu joojiyay duulimaadka dalka wuxuu ahaa mid wanaagsan oo ka hortagi kara in dad badan oo xanuunka qaba ay soo galaan dalka. Ra'iisul Wasaare Kheyre uu bogaadiyay gulufka military ee lagu xoreeyay Janaale. Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa taliska ciidanka xoogga dalka ugu hambaliyeeyay xoreynta deegaanka Janaale oo ka mid ah fariismaha ugu weynaa ee Al-Shabaab. Waxaan bogaadinayaa guusha ciidamadeena geesiyaasha ay ka soo hoyeen howlgalka argagixisada loogu dulqaaday shacabka ku dhaqan deegaanka Janaale iyo deegaanada ku xeeran. Waad ku mahadsantihiin gudashada waajibaadka idinka saarnaa ilaalinta dhiigga iyo hantida ummadda Soomaaliyeed, ayuu yiri Ra'iisul Wasaare Kheyre. Guusha ciidanka xoogga ayaa ka dhalatay dib u habeen iyo tayeen uu hogaaminayay Ra'iisul Wasaaraha oo lagu sameeyay qeybaha kala duwan ee ciidamada, taas oo horseeday in taliska ciidanka la wareegaan hoggaanka howlgalka argagixisada ee dalka looga saarayo. Dib u habeyntii aan ku sameynay ciidanka waxay sare u qaaday tayadooda iyo niyadooda, waxayna soo celisay heybadda qarankeena, taasoo suurtagelisay in cadowga laga sifeeyo dhul ay sanado badan ku sugnaayeen, taasoo qayb ka ah qorshaha badbaado ee Al-Shabaab dalka looga saarayo, ayuu yiri Ra'iisul Wasaare Kheyre.
howlgalkan oo ka duwan howlgaladii hore ayaa ujeedkiisu yahay gaarsiinta adeegyada muhiimka ah dhammaan deegaanada cadowga laga xureynayo, taas oo loogu gal leeyahay inaan argagixisada dib ugu soo laaban deegaanada laga xureynayo. Si loo hubiyo soo celinta nolosha deegaanada la xureynayo, howlgalkani wuxuu isugu jiraa ciidanka xoogga oo weeqaya argagixisada, booliska oo xoreynta kadib la wareegaya amniga, dhismaha maamulada deegaanada iyo hay-adaha kale ee dowladda oo adeegyada asaasiga gaarsiinaya, ayuu yiri Ra-iisul Wasaare Kheyre.